kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada podcastigii muruqmaal halkan oon kusoo gudbino talooyin iyo xeelado wax ku ool ah si ay kaaga caawiyaan inaad maaraysid lacagtaada iyo inaad gaartid xorriyad dhaqaale. Maanta waxaan diiradda saaraynaa dakhliga dadban. Waxaad isweydiinaysaa muxuu yahay dakhliga dadban? Dakhliga dadban waxaa loola jeedaa il walba oo dakhli kaa soo geli karo oo aan u baahnayn inaad wax dadaal ah gelisid ama u baahan wax yar oo dadaal ah inaad gelisid. Waa sifo ay lacag kugu soo gasho xitaa marka aadan si firfircoon u shaqaynaynin. Waxa ayna noqon kartaa hab aad u fiican oo lagu dhiso hantida laguna gaaro xorriyad dhaqaale. Waxaa jiro siyaabo badan oo kala duwan oo loo abuuri karo dakhli dadban. Hababka ugu caansan waxaa ka mid ah maalgashiga shareerka shirkadaha iyo ganacsiga sarifka lacagaha sida online-ka, iyo maalgashiga hantida maguurtada ah sida guryaha ama dhismooyinka, ama iibsashada dhulalka haddii u sii iibisid. Abuurista iyo iibinta alaabta dijitaalka ah sida e-bookska waxaa laga wadaa buugaagta lagu qoro internetka oo lagu iibiyo internetka, ama koorsooyin loo diyaariyo qaab online ah oo lagu iibiyo internetka, iyo sidoo kale bilaabidda blog lagu qoro waxyaabo markaas dadka ay xiiseynayaan ama waxyaabo dadka faa'iido u leh oo adigana aad khibrad u leedahay, ama soo saarista podcast haddii aad uga hadashid markaas waxa adiga khibrad u leedahay oo dadkana faa'iido u leh oo ayna xiiseynayaan. Dhammaan agabyadan iyo noocyadan kala duwan ee lagu abuuro dakhliga internetka ayaa waxaa inta badan laga sameeyaa xayeysiimo ama waxaa lagu iibiyaa alaabo si internet ah. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee abuurista dakhli dadban waa in ay ku siin karaan waqti dheeraad ah iyo xorriyad aad ku eegto damacaaga iyo danahaaga shakhsiyadeed. Adigoo dhisaya dakhli dadban waxaad yareyn kartaa ku tiirsanaantaada shaqo dhaqameedka maalinlaha ah ee caadiga ah oo ay dadku u shaqo tagaan, taas oo waqtigooda ay ku dishaan dakhli. Taas beddelkeedana waxaad abuuran kartaa hab nololeed dabacsan oo kuu shaqeeya, weliba iyadoo uu dakhli soo galayo mar walba iyo meel walba oo aad joogtid. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah inaad xasuusatid in abuurista dakhli dadban inta ugu badan ay u baahan tahay maalgelin hore oo mug leh, iyo taasoo isugu jirto waqti, lacag iyo dadaal. Ma ahan qorshe aad si degdeg ah taajir ku noqon kartid, waxayna qaadataa waqti iyo juhdi aad u badan si loo dhiso il dhaqaale waara oo dakhli dadban uu kaa soo geli karo. Gabagabadii, dakhliga dadbani wuxuu noqon karaa aalad awood leh oo aad ku dhisi kartid hantidaada aadna ku gaari kartid xorriyad maaliyadeed oo shakhsiyadeed. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa podcastigii aan uga hadlaynay oo yaraa oo aan uga hadlaynay abuurista dakhli dadban. Waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iidaysateen. Aad baan idin salaamayaa.